السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصوماليي أقونتان ساعدة إنو إلهي الدنيا آخرة بإذن ساعدو أقونتان وحلو قبتمان تغويدو دوا عريان أبوهو ذا نواد انتي دنيا دروفا هيسو صوماليي هلا عابيو أقونتان ما انتوا الدنيا بري وآخرو وحاد ما انت بحثتو أياد بري تهليسا فضلا هلو غرغار أقونتان هو يضودن وعريان dugsiya dhiga jirnay dugsiga waa ka baxnay waana la soo buriyay hadana la soo buriyay waxay la ilmeynaysaa daruufyo culays dhaqaale oo gabadhan yar ku qasbay inay dawarsato waxay u qaraab tagtaa aroor walba xaafadaha iyo suuqyada Muqdisho si caruur la lato agoona iyo hooyada oo naafa ay u garab istaagto hooyada maadaama jiistahay ee curiyaan tahay ana u garab istaago wayna soo qaraabi jirtay ana u qaraabo hadana maantana waxaad igu cusanaynaa in walaalaha muslimiinta na qabsan ee waxna siiyaan aan jecelnahay marka ogaanaanahay oo u duceeynaa bakaari iyo soo qarabtaa meelaha sabta loo qabo bac u qaataa waa qarabtaa dabka daawan waxaa ka codsanayaa dugsiya dhiga jirnay dugsiga waa ka baxnay waana la soo buriyay hadana la soo buriyay واسك قرية اسك جوا قرية ده اسك جو مالا أو سبته بعقتها هو يا خديج نور أبيكر أو الشيء عروتنا أقونتها إسلام كان أقف نافع أي أقرب تجرت عروتنا ذو جدان لا أقونتها بس هذا وحي جبتي قرابك وحن لك دقي حنونك الدون وسبير صدي محاولة المها بكارها سو قرابي جري حتى واحد وسنة دي كراي ودعي كاساي ودعي كرسرولا يقدعي maqaarka xataa lugaha waa arkaysiin muxuu ahayd maqaarka waa ka jirana lugaha waa kana lugta waa tanaa meeshaas waaye jilbaha caloosh cudurkaas igu dhacay waa xanuunsanahay muxuu ahayd kirida $60 ku takanahay kirida waa leeyahay leeyahay biyaha waa leeyahay korontada waa leeyahay dugsiga ilmaha waa leeyahay soo buriyay marka xooada saakaba dab looma shidin waxa haysana male gabadhan yar oo ilmaha u roon xoo ahayd markii wax la waayo ee magaalada bac qaadataa meelaha oo sabta lagu qabay soo qaraabtaa aniga waa soo waay walaalaha muslimiinta waxa ka codsaynaa inay muxuu ahayd tan karab istaagaan caruurta ay dhashay hooyadan waxay wajahayaan culays dhaqaale waxayna xustay hooyo Khadiija in aysan heli karin waxa isku daaweeyaan sidoo kale waxay tilmaamtay in dugsiga Quraanka laga soo ceeriyay arrimo la xiriira dhinaca dhaqaalaha waxa adiga codsaa waxa isku daaweeymayo cunugan xataa uu jiray madaxiisa waa kana saas oo ruqruqay maxaa aniga saasa noqday marka saas dhibkaasaan haysto waxa maanta u soo baxa banaanka oo isoo bixiyay dhibaatada oo haysata tarteed u soo baxnay marka xoogaada walaalahayga muslimiinta u soo baxay inay kaalmeeyaan ee karab qabtaan maxaa waxa idin sheega maxaa inaa shaqo abuur ii sameeysiin ilmaha waxa ku karsado mal kari bixi ma kari biyo bixi ma kari gorota bixi ma kari dugsi dhiibi ma karo gaari ku socdo ma haysto muxuu ahayd mooto oo ku socdo gaari xataa dilaysiyo isku wadi karo meel bacaadaha jooga ka mooto waa iska jecelaha taa helay oo ku socdo in laysiyo oo wax ii qabatiin aan jecelahay muslimiinta walaalaheeyow dhibkaas ay haysto dadka Soomaaliyeed ee daawanaya ayay ka dalbatay garab istaaga maadaama aysan awoodin oo shaqeynta caruurta ay dhashay caruurtayda waxa waaye 2 gabdhood iyo 2 wiil midtaas u roon marka maalintii oo dabka oo muxuu ahayd dalashida waayo ayada bac qaadato macnaha meelaha sabta ka jirtay aataa iyagu soo qaraabata ani marka hore ana bakaaraha aad jiray hadda muxuu ahayd inta bilowda xanuunsanay anta wax oo karab istaagay male muxuu ahayd adogood nin lama dhalanin waxa la dhashay ma ahayn ummadii oo hay anigana muxuu ahayd habartay adogay waa dhinteen bulshada ay la wadaagtay telefoon ay kala soo xiriiri karaan si loo garab istaago hooyada naafada ah iyo caruurta ay dhashay agoonta magacayga waxa la yiraahdaa Khadiija Nuur Abikar Khadiija Nuur Abikar furahayga waa 5 15 26 9 waa furaha waa 5 15 26 9 kaasa laga soo wici karaa mar walba waa ii shiday asaa laga soo wici karaa walaalaha baahi weyn u qabaa walaalahay oo banaanka dal iyo dibad ku nool oo meel kasta iga fiirsayaan oo meel walba iga arkayaan
muxuu ay taa waa u baahanahay gacan weyn inay isiyaan ee isoo karab istaagaan aan u baahanahay daawadayaal sidaad arkaysaan qoyskan waa qoys agoon ah hooyada dhashana waa cuuryaan aabbahoodna mar hore ayuu geeriyooday waxay ku dhibaataysan yihiin magaalada muqdisho waxayna dadka soomaalida ee daawanaya ka codsanayaan inay garab istaag u muujiyaan islamarkaana si deg deg ah ay uga soo gurmadaan waxay sheegeen in iskuulkii iyo sidoo kale dugsiga qur-aanka kariimka laga soo ceeriyey maadaama aysan haysan wax qarash oo isaga bixiyaan dadka soomaalida ee daawanaya ayay ka codsadeen inay garab istaagaan